isiin weyday dulqaadkeeda masaniyadeeda waa isiin weyday inaan dee ka aamuso inaan ka hadlo ayaan jeclaystay shacabkayga quruxda badanne ra'yigiina iyo fikradahiina iyo inta waxgaradka ah inaad ila wadaagtaan haddaan qaldanahayna laki waa qaldan tahay inaad tirahdaan baan jeclaystay marka aad baan idin salaamayaa kal iyo laab baan idinku salaamay waa halkii DJ Swear kal iyo laab marka horta waxaan rabaa inaan horta idin wada salaamo idinkoo idil salaan kadib maanta waxaan joogaa horta oo aad aan ugu faraxsanahay oo aan u imi maxaan ku rahdaa faadumo shaxshaxley habartay gurigeedan aan galabta aan imi inta aan idinkaga soo dahay waa inta jidka fiila igu qabsatay waa jam oo ayuu ahaa maanta marka waxaan jecelahay programkaasi insha Allah iyadana waa igala qayb qaadan doontaa shaxshax waa fanaanad qaran waa jilaa qaran hobladay waa beri waa dadka aan ku dayano oo aan jecelnahay in meelihii ay soo mareen insha Allah inaan marno Faynus iyo shaxshaxley iyo Maris Carbone iyo qaar kaloo badan marka waxa weeye asxaabteyda qaaliga ah waxaan rabaa inaan ka hadlo program oo ay fanaaniinta indhaha ka dateen laakiin anigu aan ka dadan waayo muxuu yahay programkaasi waa programka Somali Week waxaan kala garan waayay anigu 7 bilood baan horta wadanka UK gaar ahaan London aan ku noolay hadda intaasina waxa weeye inta fanaaniinta inta aan aqaano meel walba ay joogaan gaar ahaan kuwa London dee dabcan garan maayo waxay ayagu ay uga dateen indhaha oo ay kaga hadli waayeen oo anigoo shalay soo degay waxa aan uga hadlay waxa weeye waa waxaan arkay qofka bini aadankana waa fiican yahay waxa uu arkay inuu ka hadlo sax mise qalad صح marka waxa weeye programka Somali Week waxa weeye waxaan rabaa inaan horta qof walba soo u arko horta inaan ogaano Somaliland Week miya mise Somali Week waa labadood ما برنامجك waa haddii Somaliland Week hadduu yahay waa jecelahay waa u hambalyeynaya maxaa yeelay waa dadkeeni horumarka qiimaha badan ee ay gaareen oo mar walba ay ku talaabsadaan waa ku faraxsanahay waan ugu hambalyeynaya waa asxaabteyda fanaaniin ha dhihin shacabka ha dhihin wallahi waan jecelahay waa dadaan jecelahay waa wallahi nacam waa dadaan isku diin iyo isku diir aanu nahay oo aan jecelahay laakiin haddii Somali Week programka sanadlaha lagu qabto London uu yahay Somali Week xaq baan u leeyahay inaan ka hadlo Soomaalidii baan kamid ahay Soomaalidii qurbaha ku nooleed baan kamid ahay Somali Week hadduu yahay kii Gaarisa joogo kii Djibouti joogo kii Hargeysa joogo kii Soomaaliya joogo Muqdisho joogo iyo kii Puntland joogo kii oo Ethiopia dowlad deegaanka joogo meel walba ay joogaan waa ii wada Soomaali shacab iyo fanaaniintaba laakiin anigu waxaan arintaasi maanta aan live-ka aan ugu soo fariisto waxay tahay Somali Week looma dhama Somali Week programkaasi oo sanadlaha fanaaniinta lagu keeno ma loo dhama looma dhama waxaana loogu dhameen baan idin cadeynayaa waxaan loogu dhameen waxay tahay fanaaniinta waa dulman yihiin fanaaniinta Soomaaliya oo dhan jooga waa dulman yihiin maxaa yeelay si sax ah waxba looguma qaybiyo fanaanka jooga maxaan ku rahdaa Hargeysa iyo fanaanka jooga Muqdisho iyo kan Nairobi joogo iyo kan Gaarisa mase Jigjiga joogo mase Djibouti joogo mase Puntland joogo maxaa u diiday in la simo walaalayaalo shacabkaygiyo anigu waxa weey waxaan jeclahay wax walba oo aniga oo aan arko inaad ila qaybsato farxad ha noqoto mise ha noqoto maxaan ku raahdaa
siyaabo kaleba marka waxaan taa uga gol leeyahay waxay tahay maanta mid baa jirta fanaaniin marka sorry telefoon baa ii soo galay waxaa weeye fanaaniinta jooga sorry telefoon baa ii soo galay fanaaniinta joogo soomaaliya gaar ahaan kuwa soomaaliyeed ee maanta magaca soomaali hadday wadaagaan for example fanaaniin waxaa jira hadda cusub oo hadda soo baxay oo in muddo hadda oo fankoodana aad loo jecel yahay qurbaha laga jecel yahay marka maxaa diiday fanaaniinta la keeno oo dabcan waxaa fanaaniinta inta badan laga keenaa waa Hargeyso maxaa diidi karaa isleedahay haddii maanta fanaaniinta laga keeno Muqdisho haddii laga keeno maxaan ku rahdaa Jigjiga mase Nairobi mase maxaan ku rahdaa Puntland mase anywhere ay joogaan fanaaniinta maxaa u diidaya in fanaaniinta la simo oo fanaaniinta niyadda aan laga jabin oo dabcan waxaan oran karaa kolley aniga fanaaniinta ma kala jecli aniga laakiin waxaan jeclahay in la simo maadaama Somali Week uu wato magacii Soomaaliyeed marka waa dabcan dad badan baa hadalladayda ka xanaaqi doono laakiin uma joojinayo wixii xanaaqaya waa xanaaqayaan maxaa yeelay runta waxa weeye indhaha ma laga dadan kara indhaha wixii qofka bini'aadanka danqiyayna waxa weeye inuu ka hadla wanaagsan laakiin inaan sacabada u tumo wixii qaladka ah programkaasi waxa oo daadihiya oo hagaajiyana waxa weeye waxaan rajaynayaa in hadalladan aan ku hadlayo fanaaniin badan aan isugu tagnay oo aan dacwad aan ka gudbin doono hadduu alla idmane in oo sanadkan already waana dhaafa laakiin sanadka soo socdo hadduu alla idmo inuusan dhici doonin oo laga heshiin doono aysan ahayn barnaamijka loo bedeli doono Somaliland Week laakiin Somali Week annagu ma qaadan karno been idima sheegay kolley kallaki ahaan iyo dee shaxshaxleyna geeskayga fadhisaa marka for example hadda Muqdisho kale fanaaniin waxaa joogaan qaali ah fanaaniin waxaa joogaan oo dee fankooda horumaray oo la jecel yahay like deeqdan nuurshaa joogo cod iyo ilaahay siiyey gabadha Nadiira I think Nayrus oo maasha Allah Xanaan Washington maxaan ku raday qaar kale badan hadii Jigjiga la yiraahdo hadii Puntland hadii la yiraahdo Nairobi waxa jooga Iid Yare oo boqorka codka aan dhihi karabo baa joogo Iid Yare joogo waxa joogto Qoomaal Yare joogo waxa joogto gabadha Ikhra Yare maasha Allah sawtu rahma waxa joogta qaaliladan fanaaniin waxa weeye waa buuxan fanaaniin oo maasha Allah oo maanta niyadooda kor loo soo kicin karo oo qurbaha 2 bilood bay joogaan oo ay intay iska meelahooda hawagadisnay u noqoto ayaga niyadda moraalka uu dhismi karo marka waxaan maanta aan uga hadlay taasi waxay tahay damiirkayga isiin waayay in aan aamuso mid kalena waa jirta oo aan xaqiiq aan ogahayo fanaaniin maanta ku nool London ku dhacday maxay tahay حقيق بان إنك كهاد ليا والله حقيق بان إنك كهاد ليا فنانين تسي وحا لغو سمية فنانين تا إيماني سو فنان ملكة لها فنان وولالو وإسوضة جعلنا هاي قبيلنا مني هنا نقا انتي قبيل لي على شوض الله سيو فنانين تا لكن النقا انت بدن فنانين تا قبيل ملها وحا ترتو إن فنانين يمادين أو فنانين تي أي أتاقين فنانين تي البابك waa loo diiday mi believe garanaysan albaabka waa loo diiday inta maysan u joojinin waxa weeye soo ansoo si ku gali karaan oo bahadil ah bay albaabka ku galeen fanaan albaab laga celinayo waa maxay mikrofon inuu qaato muusan u tagin wuxuu u tagay fanaaniintaasi maanta Soomaaliya nooga yimid in ay soo salaamaan ay dareensiiyaan in maanta fanaaniintii walaalahood ay ka soo horeeyeen in welcome to London inay yiraahdaan kowde waa loo diiday soo way galeen hadda ma magacaabayo 1 iyo 2 ma dhahayo laakiin xaqiiqatul hal qof xataa maaha labana maaha fanaaniinta loo diiday oo la yiray ma galeysaan banaanadaas ka raadsada fanaaniinta
marka ma waxaan ka aamusi karnaa taas aniga waxa weeye hadda yurub iyo maxaan ku rahdaa furinla waa u tegay maasha allah 19 waa soo salaamay ilaan laki london ay degan tahay mana noo imaanin waxoogaa waa ceeb waa isku fiicannahay waan aqaanaa maasha allah waa soo salaamay waa kasoo tegay inkastoo habeenkaasi aanan u diyaar garoobin aniga hees laakiin waa soo salaama maasha allah laakiin ma aanan arag anigu wax oo dhibaateeye laakiin walaalkay mase walaashay haddii la dhibaateeye anigu soo dhaweyn la isoo dhaweey waxba ii noqon mayso marka arrintaasi ayaa ugu badan inta aan ka dhiidhiyey fanaaniintana waxaan la yaabanahay oo london ku nool kuwa kale waxa weeye iyo kuwa soomaaliya joogo dhan laakiin kuwa london ku nool iyagiiba hoygooda loogu yimid maxay uga hadli waayeen ma garanayo waxay uga hadli waayeen adiguna shaah kuleel baad cabto alla ilahe marka waxa weeye in laga hadla weeye waxyaabaha qaarkood oo fanaaniinta dhibayo mise lagu dulminayo fanaaniinteenii waa in laga hadlaa marka hadda anagu kolley dacwaan diyaarsanay haddaan soomaalida maxaan ku idhahdaa oo wadanka ku nool haddaan nahay fanaaniinta maxaan ku yidhaahdaa dee in qaabkan laga bedelo aysan ahayn la qaato somaliland week anigoona qof maanta aanan magac iyo waxba aanan sheegaynin soomaali waa soomaali muuyo joogo abwaankayga qaaliga marne fanaanka qoto heesta qoto qaaday wuxuu yiray hees hadda uu soo wada weeye wuxuu yiray kow dheh siyaasad haddii laysku seego dadku sinjibi wadaagaa siyaasad haddii laysku seego dadku sinjibi wadaagaa soomaali waayo siyaasad haddii laysku seego dadka sinjibi wadaagaa sokeeye ii xigaal waaye soomaali waaye heeso hadda uu soo wada weye marka soomaali waaye soomaali mar walbaba waxa weeye ma kala qaadi karna annaga marka bal hadda shaxshaxan ku wareejinayaa aniga mawduucaana usoo galayna waxay tahay in magaca somaliland week in loo daayo mise somali week hadday tahay in saan wax laga bedelo oo fanaaniinta la simo saas haye shaxshax asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar labaad iyo mar saddexaad soomaalida joogta waa idin salaamay seetiin ma la fiican yahay barnaamijkan la kiyay laba unbuu noqon ama somali week buu ahaan ama dowladda somaliland week buu noqonayaa labadaasuu noqonayaa wax ka dhaxeeyo ma dhacayso ama somaliland week buu noqon ama somali week buu noqonayaa ama soomaali way u sinaanaysaa ya ama meel bay u wada go-aya hal meel kaliyuu noqonaa barnaamijkaas saa laguma wada socon karo lagumana wada joogi karo dadnimana ma ahan waa diin laga wareedhe horta fanaaniinta london joogto biyo baraf leh galaas barafay cabbeen inay kululaadaan oo dhiigooda kaco oo xasaa habeenka cala ahaa taga waay aniga fanaan meel kasta uu jooga waa ii fanaankeyga niyadaydaa u furan gurigaygaa u furan xooleygaa u furan qalbigaygaa u furan maskaxdaydaa u furan laakiin aniga ma raba fanaan inuu iga xigsado fanaanku waa walaalkay fanaanku waa ehelkayga fanaanku waa dadkayga inuu wax helana waa jeclaa inuu dhargana waa jecla ana inaan dharguu jecelya laakiin ma ogoli somali week in qaarna 3 4 5 laga keeno meelna hal xabba laga keeno no ma dhacayso soomaalida hala wada simo oo sinaan waxa lagu wada qaato aysan ahayn hal meel ha u go Somaliland week ka noqdo barnaamijka waa ogolna waa ka baxay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa idin salaamay lakiyay hawsha waadna gelisay meesha ku dhamaynayno waa nala ogaanaya insha Allah sheekadan halkaasay ku dhantahay intaasan ayaan maanta in caawa aan idinku soo galay inaan idin la qaybsado shacabkayga intii og de waaba og tahaybo intaanan ogeyn in ay ka dhiidhiyaan oo ay ka hadlaan maxaa loo hadli waaye ma la isku cadaabo waa la hadlaa inta xumaha iyo cuqdada qabtane ilaahay calooshooda nadiif ha ka dhigo waa la wada